الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ربي جل علاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله أكبر الله أكبر. وتعيها أذن واعية. dhagaha wax maqla ayaa khayrka u duleela. dhagaha jecel kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala markay sida u maqlaanba qalbiga u dhaadhiciyaan. dhagaha khayrka iyo kalaamullah jecel markay saa u maqlaanba jirkooda ayaa jariircooda. kadibna waxay u hiloobaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala maghfiradiisa, waxay u hiloobaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ridwaankiisa iyo raallihiisa, raxmadiisa iyo nicmadiisa u hiloobaan. walaalkayga sharafta badan, walaalkayga qiimaha badan, ma ogtahay qofka ugu liita qiyaamaha, qofka ugu liita miyaa taqaanaa sida uu warinayo imaam muslim saxiixiisa min xadiisi abi saciid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ardah. abi saciid wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yiri calayhi salatu wasalaam: inna asharru an-naasi manzilatan 'inda allahi yawm al-qiyamah. qofka ugu shar badan, manzilada ugu sharta badan ee ugu hooseysa ee ugu liidata yawm al-qiyamah miyaa taqaanaan? ma kuu sheega caawa manzilada ugu hooseysa qiyaamaha ee ugu xun ee ugu liita ma taqaanaa? nabiga ayaa kuu sheegay calayhi salaatu wasalaam. nabigu waxa uu yiri: arrajulu yufdi ila imra'atihi. waa ninka markuu xaaskiisa nolosha la qaato, ama xaaska markay nolosha ninkeeda la qaadato, thumma yanshuru sirraha. laba lamaana oo guri wada jooga, ninkiiba xaaskiisa la sheekaysanaya, xaaskiisii buu ma artay la istimtaacaya, gurigu la soo galaya, xalaash iyo noloshii macaaneyd iyo qubladii iyo ma taqaanaaye iyo isdhex maraya. kadibna waxa weeyaan banaanka intuu u soo baxo ayuu waxa uu leeyahay: ma taqaanaa gabadha aan qabo? waaw, ma taqaanaa? ma sha Allah, waa gabar nooca iyo noocaasa, waa gabar saasa dhex yaroo noocan oo xubno noocaasa loo cajiiba oo عجيب. وحي يمرك شاكينيا سريرته وحي كدعي يا جعيلك دحمري يا هني سعوتي يا ألابيه اللي قرني يا سرسرتي يا معانك يا لافلافك أيو بنانك صوت دقيا. ننكا السجأة وننكا أقول لي تمنزلة عند الله يوم القيامة. أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وكذلك المرأة قبل أنت قبلها شرس اسكت مادو ترى هذا ننكا يقوم أرتيه ساسو إيالا ننكا يوحس يوسميها ساسو إيالا ساسو إلى سيحدا قبل يذن ننكا إذا كشكيسا قبل سنوا قبل أقول لي إذا تمنزلة عند الله يوم القيامة نظرهم بقفتاس استاهشا قيمة إله أكتسا كملها وحادنا أقاتا هداد إله أكتسا كقيمة لعضو أنك أكثر ذا قيمة كمالهيد، لأنه أنك وحنكو قيمين أنك وجعل له وحب الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى وصلة أمرك له وقاضنيسو وصلة النبي ودينس عليه الصلاة والسلام. مربى هداود أفعاش يفلمانتو نوع ساعات بلشدة كرد حكعضو وحد أوغاتا إن أكو عيارت آخر هذه أذو واحد سلاده وري مقالمو واحد سلاده هنينك كوقبا كشيكي قبلها كالأوغا شيكي وأن النوع عاسا وأن خوردير وهبين كمركو إيمادو نلكو دنسدا ساسان سمينا الكاسان سيحنا سررت قاقعاس marka waxa aad ka sheekaynayso ogow waxaad lumisay positionkii aad qiyaamaha ku lahayd, ogow waxaad lumisay mansiladii iyo qurbadii iyo dhawaanshii aad ilaahaysa ugu dhawaad wad lumisay. ogow arrintan haddaba aan ka sheekayna waa xalaashi. ya Allah ya Allah, waxa aynu ka sheekayna waa xalaashi, waa lamaanihiis qabi xalaashi ugu ahaa. fama balu zunnat. haddaba ka warraba kuwa ziraysta izrada ka sheekeeya. yaa ilaaha alcaalamiin, kuwa intay baadhiyada tagaan xafladaha tagaan soo tuntaan kadibna dadka uga sheekeeya bal kuwa ka warran.
kuwa marfashada taga kuwa kilaabyada taga ee markay soo noqdaan dhaha waxaasaan sameeyey ninkaasaan la seexday ninkaasaan hadda kor ila seexday gabadhaasaan la seexday xumaanta kuwaa faafiya ka warrama kuwaasi waxa weeyaan yaa allah dadkii xalaasha isku ahaa ayay mansiladu halkaas tagtaye kuwan xaaraanta ku dhacay dembigii zinada iyo xumaanta iyo dembigii dadka ay ugu sheegeen allahu akbar walaalkayga qiimaha badan walaashayda sharafta badan ka fogow inaad kuwa noqoto ka fogow hadday macsiya kaa dhacdo inaad macsiyada aad ku faanto ka fogow ma ogid in lagu qaban doono ma ogid inta lagu soo jiro ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina akhdahu aliimun shadiid wallahi qabashada ilahay way daran tahay wallahi uma wallahi qabashada ilaahay way daran tahay adoon ogeyn baa lagugu soo boodayaa ma ogid cudurka kugu dhex jira ma ogid markaad dhimanayso ma ogid markaad adduunyada ka tegayso walaashayda qiimaha badan tub ila allah subxaanahu wa tacaala ilaahay u towbadkeen qabla fawaati alaawaan maalowta gabar baa isoo wacday wadamada yurub ku degan waxay tiri waxaan ahaa gabar runtii fisqiga iyo xumaanta caan ku ah anigoo 16 jir ah ayaa waxay tiri yaa ma aragtay shaydaan i dubsaday tiri muddaan ku dhex jiray bay tiri waxay tiri maalmaha kamid ayaa waxaan daawaday tiri ducaada meelaha maqtacyada ay soo galiyaan clip yar waxaan daawaday towbada iyo ilaahay looga shaqeynay subxaanahu wa tacaala gabadhaas waxay tiri ormaarig nolosheedii waan bedelay gabadhaas waxay tiri min yoomi aan maqaaticda iyo khayrka aan maqlay wallahi xataa qiyaamu leyl igama tegin bay tiri qiyaamu leyl igama tegin bay tiri qur-aankii baan dib u muraajaceeyey noloshaydii baan dib boor oga jafay allahu akbar waxay tiri waxaan dareemay noloshatan ugu macaan baan galay waxaan u malayn jiray fisqiga iyo xumaanta fujuurka iyo qaawalaanta iyo mataqaanaaye caariyadnimadu inay tahay model in ay tahay ma aragtay style inay tahay ilbaxnimo laakiin waxaan ogaaday ilbaxnimada iyo quruxda iyo inuu yahay markaad ilahay u dhaatay subxaana wa tacaala walaashayda qiimaha badan walaalkayga sharafta badan miyaadan doonaynin mansilooyinka qiimaha badan inaad gaadho anas ibnu malik radia allahu tacala canhu ardaah maalin nin baa u yimid sida uu waranayo yani alimaam alxaafid alxajar alasqalani ou ku leeyahy kitaabkiisa alisaaba waxa uu leeyahay nin baa u yimid kaasuu ku wari yaa anasow beerihii baa naga qallay biyo la-aan baa nahaysa markaasaa wuxuu yihi biyo yar ii keena markaasuu weysaystay markaasuu 2 ragcadood tukaday waa anas ibnu malik alansari radi allahu tacala canhu ardaah oo waxa weeyaan khaadimu rasuuli llahi sal ly slam 2 ragcadood buu tukaday buu yihi markaasaa markiiba roob iyo gugac iyo waxaa isqabsaday hanqadh waxaa isqabsaday buu yihi markiiba inay dhibicda nagu bilaabata buu yihi manzilada maanta lagaa rabo waxa weeyaan tarbiyadii uu tarbiyey nabigu asxaabta ridwaanullahi calayhim ajmaciin inaad qaadato oo aad 2 ragcadood iyo ducooyin aad wax ku hesho ma waxaa lagugu talagalay ma waxaad u malaysaa in macnaha ay qiimo leedahay inaad hoos u dhacdo walaalkii kor u soo kac oo nin salaadaha wax ku qaadan karaya noqo oo qof ducooyin wax ku qaadan karaya noqo oo qof ilaahay u dhow noqo anas bin malik markuu gacanta kor u qaaday uu yiri ya allah uu tukaday markiiba roob baa isqabsaday maanta adigu cudur kugu dhacay maanta adiga sharci aad maanta adiga amni aad weyday maanta adiga shaqo aad weyday waxaad ku keensan leedahay calaaqada aad ilaahay subxaanahu wa tacaala war hadduu ilaahay wax kuu xallin waayo ma bini aadan ba wax kuu xalinaya ma islaanta ba wax kuu xalinaysa ma dawlad ba wax kuu xalinaysa ma maal ba wax kuu xalinaya ma fiisika ba wax kuu xalinaya no wallahi kuma xalinayaan waxa wax xaliya waa allah subxaanahu wa tacaala alqaadi alxaajaat huwa allah subxaanahu wa tacaala cidda xawaa'ijtaada iyo danahada kuu fulin karta waa allah subxaanahu wa tacaala cidda ku caawin karta waa allah subxaanahu wa tacaala cidda ku garab istaagi karta waa allah subxaanahu wa tacaala cidda markaad cuskato aan kaa hoosbixin waa allah subxaanahu wa tacaala cidda mansilada sarraysinaysa waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahay isaga yaa iskala aakhriya adduunba wa inna lana lalaaakhirata waluulaa adduunkan arkayso gaala ma lahan adduunkan Chinese ma laha Americana ma laha adduunkan Africana ma laha European Union ma laha adduunkan Allah ba iskala subhanahu wa ta'ala adduunkan Allah ba iskala subhanahu wa ta'ala وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلهي أذوك قلت سبحانه وتعالى أذوك سخري وددي أتكغى فإذا الله الراع وعلم النافع برو وعلم الشرع برو وإلهي سبحانه وتعالى قفك وحا واجب كؤا معرفة العبد ربه معرفة العبد دينه قفك إنه ربك سبرته قفك إنه دينتي سبرته قفك إنه نبيك سبرته والإلهي برو سبحانه وتعالى والوقت جلسات إلهي كبر الله أسماء سي صفات كيسا
war waqti geli saad ku baran lahayd sunnada saxiixa ah war waqti geli saad ku baran lahayd diintaada si aad ugu guulaysato adduunka iyo aakhira baarakallahu fiikum halkay حياك الله وبياك إله سبحانه وتعالى هنقدقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فافي مقطعا قف والبقارة أو توبت كان أو خير كاقادة أذغنا الصفحة هذا يكون جرتها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته